Soomaaliya anaguna meel baan ku rabnaa Soomaalidu meesha ay naga qabaan madaxweynaha xilkiisa dhamaadana meel kale ku rabaa waxaan u rabnaa degenaanshaan u rabnaa nabadaan u rabnaa miisku dhamaata xaaladooda naga dhigaan rabnaa heshiisna ku dhamaada rabnaa waxaan rabnaa waxay kusoo heshiiyeen heshiisiinta afar lagu soo heshiiyey oo farsanaaleyna ee dhaqankiisana mar in isdooto dastuurkaan rabnaa inaan ku dhaqanaa rabnaa dadka Soomaaliya waxaan rabnaa in markaas mas-uuliyadda madaxweynimada timaado dhaxal madaxweyne looga daydo oo dulqaad iyo maxaan ku yidhahdaa isku hayn iyo isku masiirada in laga dhaxlo sidii kuwa hore looga dhaxlay laakiin hadda afar sano kadib waxaan dhaxlaynaa hagardaamo iyo dhibaataan dhaxlaynaa marka dadka Soomaaliya anagu waxaan rabnaa arrimaha aan soo sheegnay doorashooyinkii nabadgooda hadalka isku dhamaatadii wada socodkii isdowladii isdila-aantii afar sanaaleydii intaas baan rabnaa nidaamka hadda joogo oo madaxweynaha hadda joogana waxa uu rabaa kii yimid oo kabadhigaha ahaa inuu noqdo doorashooyin hal mara dhacay xor iyo xaalku dhacaasaa keenay iyo inta kale xoog lagu xagiyo xoog lagu xagiyo la garbiyo la maxaan ku yidhahdaa arrimo noocaas ayay rabaan waxay ka fikerayaan kordhin bay ka fikerayaan arrinkaasi Soomaaliya aaminideeda uu khatar ku yahay isla socodka uu khatar ku yahay amniga uu khatar ku yahay sameeyo uu khatar ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo khatar ku yahay xilka wuxuu ku quman yahay inaad ku timaado sanduuq dhala ah kugana dhigata sanduuq dhala ah haddii sanduuqa dhalada aadan ku imaanin ee qor aad ku timaayid waxay ku dhammaataan soo aragnan ognahay in qoragana laysa qabsado xukunkina meesha ka baxo qarankina kaso haddii aad sanduuqa ku timaadid waa ka dib waxa aad tidhaahdid kolley la bedelo uun baa tahay laakiin waxa lagu bedelaya inay sanduuq noqdaan baa kuu fiican iyadana bulshada Soomaalida waxaan u sheegaynaa jidka annagu aan haynaa waa jidka nabadda waa jidka nagu orgeeday waa jidka doorashada waa jidka deganaanshaha waa isla joogidii waa isdil-la'aantii waa dadka naga dhintay inaan dad kale ku darin jidka walaalkeena u rabana waa boobka iyo dilka iyo qoriga walaalkeen qorigu kor u qaaday kan baa ku hayaa uu leeyahay si camali uu leeyahay qoriga marka kor loo qaado isagoo ciidan sooma marin gacantaada intaad kor ugu hayn karto waa xadidan tahay meel uu ku dambayn doonana lama yaqaano dad badan oo siyaasadda Soomaaliya siyaabo kala gedisan soo maray ayaa qoriga ka hari waaye marka dambe qoriga asagaa iska reebay waxaan rabnaa walaalkeen inuu sanduuqa ku haro laakiin asagaa jooga Soomaaliya nala ogaad waa mahadsantihi waayahay mudan musharax waa mahadsan tahay waxaa la isweydiinayaa Soomaali Cable Saleeman Raage waxaa la isweydiinayaa magacaad uga qayb gasheen kulanka maanta waxaa la ogyahay in maamulada qaar madaxweynaha erge ahaan uu una diray Axmed Madoobe Siciidani marka midowga musharaxiintu kulanka miyay ka qayb galeen mise booqasho ay ahayd annaga kulanka waxaan u tagnay walaalaheena waan u tagnay fariimaan u wadnay aragtida annaga bulshada Soomaaliyeed oo inteeda badan matalaya ayaan aragtida aan ka qabnay guud socodka iyo kaalinta iyaga ay ka qaadan karaan iyo waxa Soomaali maanta la sameeya ayaan u gudbinay runtii aadna way noo dhegeyseen aadna way noo soo dhaweeyeen kama aan hortagin iyaga waa wacnay way waafaqeen waa u tagnay waxaan aaminsanahay ugu tagnay dadka u tagay waa laba madaxweyne hore waa ra'iisul wasaare hore waa wasiirro hore waa gabigood waa murashaxiin waa garaaley Soomaaliyeed aqoonyaha Soomaaliyeed su'aalaha siyaasadda Soomaaliya lagu yaqaano dadkaa dad kamid haddaan la heli lahayn farmaajo maanta mana ku amar taagneeyaan siyaasaddana kama soo dhex muuqda dadka soo qabtay oo keenay oo magacaabay oo ku garab istaagay iyo kuwii xilka ku wareejiyey waaye marka waa qaamaad amba soo joog Soomaaliyeed siyaasadeed ayaan ugu tagnay meesha oo ku matalayna golaha midowga murashaxiinta waayahay baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan bedelay ma jirin baarlamaankii haddii la yidhaahdo baarlamaankii ma shaqaynayana wax suurtagala ma aha marka si walbaba ha ahaatee baarlamaankii hadda waa shiray wiilkaanna haddana wuu shiri doonaa haddii allah uu dilo ogolaado walwalka iyo cabsida aad ka qabtaan in baarlamaan loogu yeeray koofi ama inuu ka shiro walwalka adinka gaarka aad ka qabtaan muxuu yahay baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku dhistaan dastuurka qodobadiisu ay cad yihiin baarlamaanka mudaharaadkiisa way cad mararka qaarkood waxaa la isku dhigaa sharci baa la baasiyey shuruucda way kala sarreeyeen dastuurka waa u sarreeya sharciga baarlamaanka soo saaraa ka xigo maamulada wasaaradaha iyo waxyaabaha la halmaalo iyo wareegtooyinka ka xigo baarlamaanka qodobkan oo isagaa sii joogayo shaqeynaya horta waa barnaamij sharciga ay soo saareen oo dastuurka khilaafsan oo 4 sano ka gedisan حتى جوجيساس نفسده هذا المركي سني الولاء اللي وقف سلام وأنا أدرك برلمان ماذا لديهم أو برلمان كيسوي جوجو وياها نسيسري أو كاش في الدولة حكومة برلمان كسوق استعمارية نفسده هذا وهو سوى أي مقارنة برلمان عالم في تركيز أو جري مقر تركيز كلام على يسوع أول أجيال كم جرا شرعي على كاس أساسا كندري كوفيد 19 بالله برلمان
been hore iyo abaabul hore oon meesha ku aragnay ayaa jira xildhibaanaduna aragtida kama midaysnayn xildhibaanada kalsoonida hadalkooda aan ku qabnay waxa ay noo sheegeen in kulankii saakay gaadmo looga jeeday annagu baarlamaanka hawshiisa geli mayno laakiin waxaan diidanahay in ummadda soomaaliyeed la gaado soomaalina wax loo sheego wax kalena la sameeyo ra-iisul wasaaraha markii la ridayay ajandaha lasoo saaray ma aanu rahin ra-iisul wasaaraha maanta loo codeynayo isla markiina waa la sameeyey si qaladana waa loogu codeeyey riditaankiisa marka goboleedyada u tagteen oo aad tirahdeen waa warbixin baan siinay iyagu way kala qaybsan yihiin oo waxaa la ogyahay labana inay isla socoto saddexna inay isla socoto marka dad aan isla soconin maxaad u malaynaysaa oo sida ninkii ugu horreeyey uu sheegay madaxweynuhu uu yidhi ergo aan anigu tiro waaye macnaha waxa aad u sheegtaan ayagiiba islama socdaan ama maro dhalaya hadda anagu fariin maanan geynay dadka soomaalida meesha anagu taliya mas-uuliyiinta ah dareen iyo aragti baan la wadaagayna ee lama fariin jiray fariintaas asaasaas sheekaya ma aanay ahayn dad waaweyn oo ay yaqaaniin iyagana yaqaano oo weliba mararka qaarkood inta badan mas-uulkiisu ahaa oo iyaga ay hoos imaanayeen ayaa dadku ahaayeen waana la hadalnay waxaana u sheegnay xaaladda dalka aragtiyada aan si qabno dareenkaana la wadaagnay afkaarna waa isdhaafsan waxaa soo haray inay kala aragti ahaayeen badigii tagay hadda waa waxay u wada fadhiyaan inay aragtidooda isu soo dhaweeyaan annaguna waa bogaadinaynaa inay wada fadhiyaan kelmada xigto ah oo daga asagaan u daliyo oo saacadkoo yiri waxaan u aqaanaa cibaaro oo lagu macnatirayo shirka ay isugu yimaadeen laakiin ay isla yimaadeen baa qaab noo ah dhagaxaan dhabooda ka dhawto dhanka gelimayno magacaygu waa cali xasan cali waxaan ku socdaa idaacadda risaala markii laga soo tago cabsida ka qabtaan in muddo kororsi arrimahaas iyo baarlamaanka ee ku kacaan haddii lacalla ay dhacdo maxay tahay tilaabada qaadaysa midowga mushrikiinta tilaabo sharci darraa oo lagu dhaqaaqay baanu arkaynaa tilaabo qarandimis baanu arkaynaa tilaabo qaldan baanu arkaynaa marka ayaan annaga iyo ummaddeena markaan la tashano wuxuu ku habboon ka sameynaa laakiin waa un dembi sida looga dhamana waa la yaqaan mudane falaalow yuusuf baa la yihahdaa RTM ka socda su-aasheedu waxay tahay tuhunno waxaa jiray ilaa 24 saac oo soo dhaafay soo baxay oo ku saabsan in midowda musharaxiinta ay xogaa sidii hore ka soo dhawaadeen oo ay rabaan ugu yaraan in dowladda ay u soo dhawaadaan waxaa la leeyahay waxaa la rabaa in la dhiso dowlad kale oo si doorasho dalka loo gaarsiiyo oo ra-iisul wasaarihi baa la siinaya midowda musharaxiinta waxyaabo lamid ah la hadalaya aragtida noocaas maxaa ka jira in dowlad wadaaga la dhiso oo aad ka soo qayb gashaan dalkana doorasho la gaarsiiyo annaga waa halkeena markaan isticmaali lahayn baan isu kalsoonaanay oo laga yimid dastuurka iyo shuruucda meel mariyadu baa naga dhexeyn karto doorashooyin baa naga dhexeyn karo dad walaalaha tartami karo waa noqon karnaa laakiin dowladda anaga isagaan iskugu nimaado waa aan isaaminay meeshay ka baxday annaguna ma ahan isagaa ka bixiyey asaguna wax kale ugama bixina qowl iyo ficil kale gedisan iyo waxyaabo badan oo shaqaban ayuu uga bixiyey marka annaga iyo asagu dalka waa naga dhexeeyaa dowladnimada soomaaliya waan beerto marba qofaa la dooranaya laakiin maanta inaan isla cajijoogno oo aan arrimihii afarta sano soo qarino aan annagu jabdhowda sida ka noqono diyaar ugu dambeyn afeene waa raadiyaha nation magaceyguna waa maxamed yaxya jino xildhibaanadii maanta inta badan ka hadlaya xarunta golaha shacabka waxay ku qayla dhaaminayeen amaba ay sheegayeenba in cid walba oo kasoo horjeeda dowladda hadda waqtigeeda dhammaaday inay lacaga soo qaateen oo ay dalka duminayaan taas maxaa ugu jawaabaysaa ma fahmin adiga su-aasheeda ma fahminiya ha waxa ay leeyihiin xildhibaanadu dad walba cid xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka maanta fadhiyey ee ka aragti duwan mucaaradku waxay leeyihiin dhammaan cid walba oo ka aragti duwan dowladda waxay soo qaateen lacago si ay u dumiyaan dowladnimada taas maxaa ugu jawaabaysaa mashruuc oo carbis ah oo afxumada lagu carbinayo oo waxaa jira afartii sane ugu dambeysay bila soomaaliya kana kaabaj ay ka tahay dadku lacag iyo qaadanay kala aragti gedisnaan karnaa haddana annaga waxaan kala aragti gedisnaan karnaa siyaasadaan isku khilaafi karnaa waa ku heshiin karnaa laakiin adigu hadda ayaga sida hebel aa u shaqaysaa hebel kalaa u shaqaysaa haddii aad maqashid dhaqanka afartii sane soomaaliya ee farmaajo joogay madaxtooyada uu ku carbinayo isagoo abaabulayo waay annaga dadkana khilaafan dabadhil faatiin ma lihin waa naga aragti gedisantiin aan leenahay inaan qancinaan rabnaa aragti inaan qaldanaan leenahay dal hebel aan u shaqaysin maan leenahay afkaynu waa ilbax waana ilbaya maxaa ku xidhan Thank you.